Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada cashar cusub iyo maalin cusub asxaabi waan idin salaamayaa meel kastood kala joogtaan iyo xilli kasta idin tahay khayr baan idin rajeynayaa asxaabta hore u joogtay asxaabta cusub oo gacmo furan iyo qalbi faraxsan kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay maanta waxaan samaysanaa macmacaan turkiya maasha allah inagu kuley waxaan idhahnaa uun qureebaad ama kackac wax caynkaas ayaan waxyaabaa sidan u sameynan idhahnaa kackaca waxa uu gaar u yahay turkiga maasha allah waa kackac aad u fudud aadna u macaan waxaan rajeynaya inaan ka wada faa'iidaysan doono insha allah biidmillahi kariim isla socod wacan iyo ka faa'iidaysi wanaagsan halkan waxaan ku hayaa 200 oo subda ah yacni 200 oo garaam oo blueban band ama subda ah kolba sideed u taqaanaan 100 garaam ahaan ayaan halkan ku ritay saad aragtaanba markaan ku riday 100 garaam madeebadii saas ayaan u kala fidfidinayaa amba u kala bixbixinayaa markaan intan kala bixbixiyo waxaan kusoo dari doonaa sonkortii insha allah sonkortu laazim waa inay ridqanaato macaankana qof walba waa intuu rabo anugu intan waxaan ku dari doonaa 4 muqaacadood dushana macaan kala hadhow kulliba lagaga sii darayaa qofkii doonaya 2 muqaacadood ka dhigan karaa intaas ayaynu isku qasaynaa intii markaan isku soo qasnay waxaan kusoo darayaa beed xabad beed oo caadi ah dhammaystiran iyo caddaan xabad beeda xabadda kale caddaankii casaankeedii baan la hadhay saad aragteen baan iyo madeebada idin ku tusay caddaankeediina halkan aan iska soo raaciyey intaas ayaynu si fiican isugu qasaynaa insha allah bismillahi kariim qofkii rabaa madrabka wuu ku qaraacan karaa laakiin iminka anu muqaacadan baan maanta ku qasayaa intii markaan si fiican u qasanay waxaan kusoo daraynaa samiidkii ama somonina koobku aad uma buuxin inbaa ka dhinayd koobka in yar buu dhinaa daqiiqdan isticmaalanaa waa 3 koob iyo badh koobka waa koobka shaah lagu cabo in yaroo baking soda ah galkeeda waa kaas aad arkaysaan in yaroo faniila ah ayaan kusoo darnay in yaroo baking powder ah intaasaynu isku qasanaa diir liin dhanaan la xoqay ama liin macaan la xoqayna qofku markuu meelahan marayo wuu ku darsan karaa hadduu rabo intan bas waan isku xashiinaa iminka si daqiiqdu ay isku noqoto daqiiq is haysata oo si fiican u xashin daqiiqdii si fiican ayaan usoo xashay waatan maasha allah saasay isku haysataa waad arkaysin wax biyo ah iyo wax caanaa midnaba may lahayn uunu yar daboolan doonaa insha allah ilaa 10 daqiiqo 20 daqiiqo intaynu dee sonkorta iyo biyaha isku soo karinayno asxaabii waxoogaa ayay inoo dabooleed kadibna waatan daqiiqdii markaysaan inoo noqotay inoo yar waxoogaa inoo yar taalay waynu kuuskuusaynaa markaas kuuskuuska qof walba wuxuu ka dhiganayaa inta uu doonayo isagoo xajmiya waad waaweyneyn kartaa waad yareereyn kartaa intan imika waad kasii yareereyn kartaa waana iska kordhin kartaa saasaan ku wadayaa ilaa inta ay dhammaanayso daqiiqdu maasha allah daqiiqdii waa anigaa soo dhammaystiray intaas ayay noqotay ofinka ayaan gelin doonaa darajada xaraarada 200 inta aynaan ofinka gelinaa waxaan sameynaynaa waxaan marinaynaa beedkii casaankiisii iyo caano yaroon isku soo qasay qofkii rabaa kafe yarna wuu ku dul dhex dari karaa yacni caanaha iyo beedka casaankiisa yacni inta huruudi aan u jeedaa beedka intiisa huruudi ah inta cas yacni saasaan ula jeedaa waxay noo faa'iideynaysaa inay dusha uu si fiican oo qurux badan inoogaga casaado waan ku dhammaystiray ofinka ayaan saa ku gelinaynaa 20 daqiiqo wuu inoogu soo baxay insha allah maasha allah waa kan asxaabay saas ayuu ku soo baxay
halkan waxaan soo qaaday saxanigan markaas kackici ama quraabaadkii aan soo sameynay saas uu egyahay saas markaan ofanka uga soo baxo waa yara wuu yara adag yahay oo wuu yara qallafsan yahay laakiin waxaa hadhow jilcinaysaa shiirada aynu ku dul shubi doono waa wasfo aad u fudud aadna u macaan iskana qurux badan runtii. Markaan halkaas soo wada dhigay waxaan soo qaadayaa sharbadii ama shiiradii kolba saad u taqaanaan sonkor iyo biyo iyo liin dhanaan laysku soo kariyey ama liin macaan iyo liin dhanaan isku dartay sidii aad kolba jeclaato muhiimad waa inaad sonkorta iyo biyaha isku soo darto haddaad banto faniilaad ku darsan kartaa ama liin dhanaan keliya ama liin macaan keliya ama liin dhanaan iyo liin macaan wada jira kadibna saasaad dusha iyagoo kulul ugaga shubaysaa markaan saa dusha ugaga shubno iyagoo kulul waan isku dhigaynaa ilaa inta ay isku qaboobayaan markay isku qaboobaana maasha allah wuxuu soo baxaya macmacaanka waxaa la aragoo la maqal gudihiisana waa kaas asxaabay saas ayuu u kala daadaadanayaa oo u jilicsan yahay maasha allah tabaaraka raxmaan aad buu dhadhankiisuna u macaan yahay muuqaalkiisana waad aragtaan waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iidaysan doono insha allah bismillaahi kariim waxaan kusoo ridaynaa saxankii aan miiska ku geynaynay qayb ka mida jawsal hindi baan dusha ka saarsaaranayaa amba aan ka marmarinayaa yacni waan ku qurxinayaa qayb ka midana sidiisa ayaan ku daynayaa oo aan ku geyn doonaa insha allah. saas ayaan ku dhameeyey kaas saxankii kalena waa kan isagana isagoo caadiya ayaan saarsaarayaan waxba aanan dusha ka marinin oka maasha allah tabaaraka raxmaan waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iidaysanay saas ayay ku dhan tahay wasfadeenii miiskana aan ku geyn doonaa ha looga faa'iideeyo ciyaalka iyo asxaabta iyo meheradahaba insha allah madbaqna ha lagu camiro waxaan idinku dhaafayaa amaano allah iyo casharo dambe oo xiiso badan.